kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani mudane xirsi cali xaaji xasan mudane gudoomiye marka hore kusoo dhawo waraysigan gaarkaan kula yeelanayno mar labaadka muddooyinkanba waxaad ku sugnayd magaalada London ee caasimadda waddanka Ingiriiska waxaan la soconaa Somaliland xaalado siyaasadeed baa ka taagan sidee baad u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee hadda ka taagan Somaliland markay noqoto dhanka nabadgelyada iyo arrimaha hadda ka taagan Somaliland bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah Khalid waan dhawahay waad mahadsan tahay xaaladda siyaasadeed ee Somaliland ay ku jirto waan runtii ka xumahay marka hore in ay maanta aynu filaynay inay halkaa ka horumarto waqti badan soo jirtay horyaal u ahayd Soomaalida geeska iyo dawladahan geeska jooga muuqaal runtii qurux badan ay lahaan jirtay in maanta hoos u dhac ku yimid in maanta la isweydiinayo siyaasadii Somaliland iyo xaalkeeda waan runtii ka xumahay guud ahaan waxaan si rajeynayaa insha Allah taala in ka bixi doonto u gudbi doonto marxalad ka wanaagsan ayaama fiican dadka reer Somaliland gaari doona gudoomiye intii aad halkan joogtay Somaliland waxaa laga dhawaaqay jabhad ka soo horjeeda xukuumadda Somaliland gaar ahaan waxaa laga dhawaaqay buurta gacan libaax jabhadaasi ka xisbi ahaan iyo ka shakhsi ahaanba sida aragtaa wallahi horta waxyaaban kule waan ka xunahay dee jabhada aad sheegtay iyo ama maleeshiyaadka kala duwan iyo jabhadaha iyo lascaanad waxa ka dhacay iyo waxa soo dhamay waa yani nasiib darro ku timi Somaliland oo waxaan ku leeyahay aad baan runtii uga xumaa inay yimaadaan maanta waxaynu haybsanayn horumariyo inaan tallaabo hore u qaadno halka yani intaynu soo jiray ee Somaliland soo jirtay lagu dayanayay ay la higsanayay in maanta yani aynu ku naaloonayno inay hore u socotay in dadka qurbajoogga halkan joogay meelaha kala duwan jooga ay aad arkayso markaad halkan joogto warwarka ayaa naxdinta haysa waxaan filayay inay isu diyaariyaan inay waxyaamaan dalkoodii oo ay isu diyaariyaan oo ay u hiloobaan oo dhawaqa ka soo yeeray oo dhawaq fiican noqdo runtii marka dhawaqa noocaas iyo kan aad wax xumahay marka jabhadahaana anagu yani jabhada la sheegayo waan mowqifkayga waanu sheegnay xisbi ahaan oo waanu tilmaanay mowqifkaygii anagu jabhad ma aaminsanin cid kastoo tagtaa nama matasho kama tirsanin shaqo kuma lihin iyaguna nooy sheegan marka yani wax naga dhexeeya ma jirto laakiinse dal ahaan ayaanu wax xunahay in runtii arrintaas u dhacdo gudoomiye dadka qaar waxay idinku eedeynayaan weliba xisbiga kulmiye oo kale dad u hadlay inaad idinku jabhadaasi abaabusheen lagu dhex arkay dad xisbigiina horey ugu dhex jiray isla markaana aad jabhadan ka dhiganaysaan ba gorgortan siyaasadeed arrimahaasi maxaad kaga jawaabaysaa waxaa runtii iska waa dee dadkiiba qiimkiiba hoos u dhacay marka wax laga yaabaa qofku inay beenti u sahlanaato yani ama uu yani waxaan jirin uu qofku had iyo jeer ale ka dhigto siyaasad marka anagu waan inaan hadlayo gudoomiyiba musharaxiiba ka hadlay waxa ka hadlay xubnihi kale xisbiga inaanan shaqo ku lahayn sabab naloogu kabaa dee naloogu cadheeya naloogu ceebeeya waa qalad absolutely xisbiyada waa dad xero qofka uguma xariisna xisbiya kale tegi karaan jabhad bay noqon karaan way dhoofi karaan dalal kale mateli karaan oo tegi karaan marka anaga dad noo xidhan meel noogu xariisan dad xisbiyadu waa xisbi dimuqraadiya dad shalay naga tirsanaaba maanta xisbi kale tegi amba shalay kulmiyan ka tirsanaan maanta waxaan joogaa wadani marka waxa laga yaabaa qaar yani aragti ka duwan qaatay marka hadday jiraan dad mar naga tirsanaan jiray oo aragtidaa qaatay dee iyaga aragtooda waxa wanay kuu sheegayo iyaguna namay sheegna annaguna nama matala iyaguna nama sheegno nama kala garaynaya laakiin iyaga quloodu marka aad u fiirsato sida dadka qaarba sheegayaan waa dad doonaya uun kana cadhooday oo buurta dee umay gelin arrimo iyaga u gaaree xisbigiina oo taagnaa in doorashada la qabto madaxtooyada wax la mid un bay buurta u galeen iyaguna oo rag doorasho doonay u muuqdaan marka taasi soo ma muujinayso in aragtidiinii oo qori qaadatay ay tahay maya duruufta yani tilmaamaysa inay dadku ama qori qaateen ama cadhoodeen duruufo badan baa ka mid maalan haddaan eego wadani wuxuu sameeyey iyo ucud isbaahaysigoodii waxaanu samaynay taariikh runtii ilbaxnimo leh marka la eegayo hanaanka siyaasadda ee dimuqraadiyadda oo ahayd inaanu dadka siiriyo u qaybino nahno siirigaasun garaaca si aanay wax
qalaan qala u samayn si aanay wax u tuurin iyagoo siidhisataba xabad la dhaca la laayay suuqa haweenkii lagu garaa dadka noocaas dee waan dareemi karayaan trauma ku dhacdayo hadday qarxaan oo muraara dilaacaan oo qoryo qaataan dee hadduu siidhisatay oo siidhigii lagu dilay ninka ku dilay baa qoriga ku kalifay laakiin si kastay ku timi anuu fikradaan waan ka soo jeedaa waxaan aaminsanahay xataa hadduu qof aniga wax la doonaya ama wax la doonaya yahay dariiqada in qori la qaataa dalla kuma horumaro xisbiga iyagan wadani iyo ciro aanu wadano u wadno iyo ku-xigeenkiisu aanu madaxtinimadii dalka u wadno iyo dowladnimadii aanu doonaynay iyo inaanu kulmiye iyo muuse u dhaano aanu doonaynay wadadeedii maaha markaanu guntiisaasan ka aaminsan gudoomiye dadka qaar waxay leeyihiin xisbiga wadanaad gudoomiyaha ka tahay iyo taageerayaashiisoo kala dheerayuunba qaarna buurta koreen qaarna ay banaanka joogaan isagoo lama odhan karo taageerayaashiini wad xakameyn kari weydeen oo waxa weeye taasina mar dhow ma keenayso un dad aan gacanta waxba ugu jirin maya xaasha taageerayaashu way dhacdaa markay caroodaan inay dee yani ay waxa weeyaan fullaacaan oo yani ay qarxaan marka taageere hadday shalay noo ahaayeen markay seriisteen bay noo ahaayeen waxaananu anagu ku dabaran yani inaan la samayn wax qalaan qala ee aynu hanaankaa dimuquraadiyadda ka midha dhalino ku soconno marka dadka sugi waaye ee ku tallaabsay tallaabadan dee waa iyagii aragtida xisbiga aniga ama kugula hadlaya jabhadda waad ku dhawaaqday lagu dhawaaqay maaragtay dadku siyaabo kala duwan bay uga hadleen kolley waad aragtay iyaguna warbaahinta way isticmaalaan oo hadallay kolba soo diraan ragga jabhaddaasi kasoo dhex muuqday cid ma ka garanaysa waa laga yaabaa dee dabcan dee islamta baan ku garanayaa oo furay ninka la yihahda kaadiiba dee waan garanayaa shaksiyan ma ahayn wadaniba waan wadani ku garan maayo dee nin jabhadii habaan ku garanaya mararka qaarkoodna waa laga yaaba in wadani taageeray waa iska suurtagal marka wareeg kule dad shalay wadani ahaa baa laga yaaba in xisbiya kala tagaan ama dalal kale u dhoofaan ama tagaan ama jabhadeeyaan ama hadday wax diidaan waxaanan u arkayaa runtii guuldarrada siyaasadeed ee uu kulmiya horseeday ee dowladda maanta joogta horseeday dowladda maanta joogtaa waxa weeye kulmiya isma saaro amba shalay baan ahaayo shalay mar loo sacbatugaya baa tiri maanta halkuu marayo inay gaadhsiiyeen madaxweynaha maanta joogay iyo xukuumaddiisu inay gaadhsiiyeen ma aha dadka qoriga qaato keliya for the first time baa hargeysa iyo somaliland guud ahaanba in 10 qof ka badani gaajo isu daldashay marka yani dadka gaajada isu daldalaya maalin walba la soo tabinaya duruufaha iyo bisaaradda meel walba gashay dhaqaale burburka ka dhacay waxaasoo dhan baa dadku muraadilaca ku keenayo muraadilaca somaliland oo guri walba gaadhay oo hormuud ka yahay xukuumaddan kulmiye muuse hogaaminayo ayaana arkaa runtii inay keentay oo sababteeda gudoomiye waxaa jirta guddiyo isxilqaamay oo beelaha somaliland madax dhaqameedkooda ka kala socda kuwaasi oo doonaya inay xal ka gaadhaan muranka siyaasadda ee taagan iyo weliba jabhaddan buurta kortay adigu saad u aragtaa odayaashaasi iyo madax dhaqameedkaasi dhexdhexaadintooda aad baan usoo dhaweynayaa odayaasha dhaqanka culimada ganacsatada dadka isxilqaamay ee kala duwan aad baan usoo dhaweynayaa waana dhaqankii somaliland lagu yaqaanay laakiinse waxaa warwar leh in madaxweynuhu intuu markii hore ay la kulmeen oo ay inoo sheegeen oo bulshada u sheegeen uu ku yidhi ima matelaano hadalkiisii aad dhegaysatay uu ka yidhi shirkii markuu ka hadlayay uu leeyahay cuqaal iyo odayaal yani isagoo weliba aada u yasaya oo hoos u dhigaya uu yidhaahda ima matelaano waxaan anigu go-aamiyey ayuunbaa soconaya dhaqankiisi somaliland midkaa ka duwan buu ahaa wuxuu ahaa dhaqanka somaliland oo aynu dadka soomaalida kaga horreynay oo ku sharfnay in madaxweyne iyo nin kastoo madaxaba inta ay u yimaadaan dhaqanku ay u yimaadaan culimadu ay u yimaadaan aqoon-yahanka iyo waxgaradku la yidhaahdo waad ku qadanteed joog oo uu joogo qabsoon marka haddii dhaqankii nooca ahaa uu u bedelay muuse iyo xukuumaddiisu hanaan dictatoriyadoo waxaan idhaahdaa soconaya alxamdulilah waa bixin maxaa ku jaban haddii uu madaxweynuhu yidhi waa sharciga aynu ku kala baxno oo ayaynan ku noqonin arrimihii beelaha maanta beela somaliland way ka baxday maxaad xirsiga u doorbidaysaan odayaasha dhaqanka sharcigii nin baa laga sheegay t b ba qof u dhacday baa la sheegaa ilahay riga nabadgeliye ku haysana ka bogsiiyey markaasaa u qufacayo markaasuu ku yidhi shifo
oo dee qofka marka qufraaf dhaqanka Soomaaliga la oran jiray marka wixii shifa laga quusay adeer Khalid oo dhaqan laga sharci laga quusay markii sharciga laga quustay ayaa imika la leeyahay bal dhaqankana aan ku dayno laakiin se sharciga waa laga quusto waxaan la isku hayaa waa doorashooyinkii sharciga ahaa doorashadiisii inuu qabto oo muddo dhaaftay oo waqtigeedii dhaaftay ayaa laga kari waayay marka sharcigii waa kala gala quustay waxaan mudaharaad u dhacayaan waxaan qayle u taagneeyay waxaan galgalashaa uu sameeyay de waa sharciga uu diiday way sharciga ka soo waxa jirtay golaha guurtida Somaliland door muhiim ah ka qaadan jireen arrimaha dhexdhexaadinta iyo nabadda Somaliland gudoomiyaha guurtida arrimahan maalmo dhaweyd ka hadlayna hadal runtii dadka qaar ay siyaabo kala duwan u fasirteen baa jira oo ujeediyo ah in dadka buurta koray ay yihiin beel iyo beelihii Somaliland ay haystaan adiga sidee bay kula muuqatay hadalka Saleebaan Maxamuud Aadan ده سليمان شخصيا دوادي يجورتي وبدأ وضيال محترم لكنسي هنانكي شقاء جورتي ده وحيلا مغترنتين هو سودع وين كوي ميو دور كانوني دور كوديها وأي دور كقاطان وأي كانن مقطع كجران وقبل بحق قاطان وحوي ضلك يهديت هاي نبضين وحاضر عليه ربش درعية يهديت هاي سوتشيتك ضرفية السياسة وعام كوي حنا نشري labada waxaan isleeyahay way ka gaabiyeen oo runtii doorkoodaas waxaan isleeyahay way gaabiyeen laakiin se still de waan ixtiraamaya ilaa hadda waan ixtiraamaya oo odayaashii waxa weeye de golaha guurtiga inuu ahaa inuu joogay de waa gole weli jiro waan ixtiraamaya afkayga xuma ka oran maayo way waxaad la socotaa gudoomiye markay noqoto Somaliland nabadgelyada buurahaasi la koray way jiraan dabcan lascaanood oo kale waad la socotaa dagaal baa weli ka socda muddo 8 bilood ku siman ka xisbi ahaan aragtidiina dagaalkaasi in xal laga gaaro maxay tahay aniga aragtidaydu isma bedelin tii maalintii koobaad aanu taagnayn baanu taaganahay waxaanu leenahay lascaanood inay xabadi ka dhacdano ka dhacdo oo dhibaata ka dhacdo oo maanta waxa weeye dadkii ay waran yihiin banaanka waxay ku timi siyaasad xumada xukuumadda joogta وانا لقى باقسن كريم لفتن علي إلا هذا نوحن ورقنا إن طريق اللومرة أنا حبذا إن حل سياسي ويهي اللومرة وحل سياسي لقيل قنقاله واللي وحلله وددكيني لو صادب على وناك لكن سي وما أعرفه إن حبذ حله قاري إن حبذ أنت لو مسلم يقوض لقى صعره لو حكومي دونه وما أعرفه وأنا unfortunate منتي قدومي maalmahan baa waxa jirtay dad badan dabcan ay isweydiinayaan gudoomiye xirsi London buu joogaa Ingiriisku maaragtay imika aad midaba joogtay iyadoo wadanka ay ka jiraan xaalado siyaasadeed oo u baahan oo masiiriya in xal laga gaaro adiguna qayb baad ka tahay oo xisbi weyn oo Somaliland mucaarad ku ah maaragtay xukuumadda hadda joogtaad gudoomiye u tahay ma la oran karaa xirsi London iyo Ingiriiska waxa uu joogaa in uu xaaladda wadanka ka taagan oo ka qaybqaadasho siyaasadeed buu halkan u joogaa intii muddaahidba dadku dee waxay doon baa oran karay laakiin si fasax baan kaga soo baxay waan isku ogeyn xisbiga waxa loo sameeyay structure-ka iyo hanaanka kala duwan waxa loo sameeyay in la ismetelo marka gudoomiye ku-xigeenno lix baa jooga way betela oo shaqadii haya musharaxii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisii baa jooga oo shaqadii haya marka anigu yani sabab gaar ah oo xisaan lagu baahdo weli imay soo sheegin haddii se la yiraahdo soo dhaqaa ana minid ay yiraahdaan soo dhaqaa ama xisbiga lagu yiraahdo ama hay'adaha qaranku waa lagu baahan yahay oo aan wax ka geysan karo oo aan wax ka qaban karo waxa jooga waxa weeye diyaar baa ma laakiinse may jirin maanta ka soo baxay jabhaduna ma jirin jabhadan la sheegaya baxday ma jirin dilkan iyo dhibtan dhacdayna ma jirin muranka siyaasadeed uu jiro muddo dheer muu dhalan markan ka yimi muddo dheer buu soo jiro sanawaad qaadatay marka murankaasuna isagoo jiro baan aniguna baxayay ragga kalena baxayo soo noqonayo wax cusub oo iminka aan ahayn curad ahayn maansan laakiin halkan gudoomiye waxa joogtay iyadoo doorashadii wakiiladu ay dhacayso oo u baahan dabcan iyaduna xududasho siyaasadeed iyo dadaal fara badan xisbigaaguna uu doonayay inuu kursigaasi uu si ku hanto mar kale ma laga yaabaa inaad guuldarrada sii ogoodo guuldarro ka carab baad ahayd waxaad London u joogto ma ilaahay ba qaybkooda ilaahay waxba lama ogiye markaan ka yimid golu fasax buu ku jira isagoo fasaxiisa markaa galay oo bil fasax haddaan bil iyo siyaada ma aqaan waxay galay ayaanu ka yimid marka waxaan isku beegantay fasaxii golo galay iyo maqnaashayga ka soo maqnaa inba isku beegmay waxba ilaahay lama ogiyo rag ku filan inuu joogo guul iyo guul darraba
waa lagu talagalaa rag baa tartamayo tartan bay haydo in يعني صاحبك يا قاعدنا دي هو السوق مرة أنا جاي قاعدة مرة يجي قاعدة مش كلمة وهكذا waxaad tahay guddoomiyaha xisbiga wadani xisbigan aad hogaamiso dad badan waxay ku eedeeyaan in marmar hogaanku ka qalloocdo oo mar dhexe waxaa jirtay in guddoomiye iyo guddoomiye ku-meel gaadha iyo hogaamiye iyo intaasoo structureba uu lahaa xisbigaagu mararka qaar waxaa la arkaa in dad madax dhaqameed ah oo aad moodo inay mulkiilayaasha xisbiga yihiin ay warbaahinta ama maaragtay siyaabo kala duwan uga hadlan iyagoo arrimihii xisbiga si uga hadlaya musharaxaaga sidoo kale waxaad moodaa inaad ku kala horeysaan xagga saamaynta ama maaragtay awoodda xisbiga xirsiyow ma sidaasay waxu jiraan mise waxa weeye wax kaloo noo sheegi kartaa jiro xisbigaadaa guddoomiyaha ugu baawarka badanaha waa guddoomiye xisbiga waa aniga loo doortay muran xisbigay ka jiraan ama ma jiro oo dee nalagama maqal mala awaal iyo wax suuqa oo aan jirin na lagama jawaabo marka waxaan jirin oo sheekada qaada ah inay ka jawaabo macna samaynayso xisbigayagu wuu dhisan yahay structurekiisa hanaankiisa wuu dhisan yahay structure ama dhismo iyo hanaan ay ogoshahay xeerku ogol yahay oo xeerku wuxuu siiyey xisbiyada inay hanaankay dooraan u dhistaan berigii hore wax lagu bilaabo guddoomiye ku xigay haddana waxay yimi oo xilligii weliba kulmiya keenay kulmiya ahaa baan garanayaa axmed silaan halabuurka ahaa in iyadoo la eegayo darafyada kala duwan iyo deegaanada kala duwan laba guddoomiye ku-xigeen la sameeyo haddana waa laga kordhiyo guddoomiye ku-xigeen waa la kordhiyo 4 baa laga dhigay xisbiyadoo dhamay 3 iyo 4 baa laga dhigay iminkana sidiis leeg ayaanu hanaan samaynay caynkaasoo guddoomiye ku-xigeenna simano dad badan baa naga qaatay halabuurkaanu la nimi halabuuradana siyaasaddu way leedahay waa inay dadka leaderska ama hogaamiyaashu waa inay hal abuura la yimaadaan wax ku kordhiyaan maaha wax xidhan waa siyaasadda wax leedahay heart of possibility maxaa suurtagal wixii suurtagala ee uu samayn karo waa inuu qofka madaxda marba daca lagu dhigo isagoo u eegaya dadka uu hogaaminayo ama uu maamulayo maxaa ku habboon iyo maxay yani ka helayaan iyo maxaa u suurtagala inuu eego marba ayuu u sameeyaa marka sidaas hanaankaasa loo sameeyey hanaan walba oo loo sameeyeyna wuu soo shaqeeyey shalayto waxaa runtii xusid mudan iyadoo shalayto aanu musharax iyo guddoomiyaha kala qaybinayo kulmiyo aad sheegayso oo wararkaa aad sheegaysa iyo huhaadaa shubaya shalayto hadday shubayeen shirkoodana iminka ku doorteen oo ku kala kaxeeyeen guddoomiye iyo musharaxii oo nagaga daydintay shalay annaga nagu caayeen marka halabuurkii uu la yimi xisbigayagu iyo hoggaankiisu waa taa hadda ay koobigareeyeen marka dee wax aanu anagu isleenahay waa ku ammaanantiin way wax laakiinse aanu ku ceebaysanin kuma arko laakiin way jiraan soo maaha madax dhaqameedkaasi afka beelaha ku hadla xisbigana maaragtay si uga tirsan madax dhaqameedadu way hadlaan oo afkooday ku hadlaan oo af dhaqan bay ku hadlaan afka reerka ayay wax ku weydiistaan markay dadka wax weydiisanayaan innagana siyaasadeenna waxa caan ay ku tahay waa siyaasad dhaqan iyo ilbaxnimadii ama modern stateki hanaankii dowladnimo oo iska shan oo had ya jeeraale isku maran oo ay bays u tahay dhaqankii bays u yahay oo aan weli maynaan yeelan hanaanadan ama dunidan reer galbeedka badan imika hanaankan dowladnimada laga soo koobigariyey ama laga soo caariyeystay oo yani waa hanaan dhaqankii weli ay isku kuwan waxay kala duwan yihiin dee ideology wax yahdaba adiga arko midig iyo bidix iyo center iyo waxaasay leeyihin oo ku dhisan mabaadi marka inagu badan waxa weeye ma lihin anwaacda noocaasee mabaadi ka sokaysa ku ah mabaadidan waa mabaadi waaweyn ka sokaysa oo xisbiga iyo muxuu qabanayaa iyo structurekiisa iyo hanaankiisa iyo qorshayaashiisa iyo programkiisa ummadda ugu qabanayo ku salaysan baa badan marka siyaasadda xisbiga ayaa qayb ka mid ah ay tahay in afka beelaha lagu xisbiyadoo dhan iyo dowladda iyo hanaanka inoo dhisan bay qayb ka too golaha guurtigaad iminka ay weydiinaysay waxaa lagu soo magacaabaa soo-aadiintaad sheegaysa soo magacaaba marka hanaanka inoo dhan bay ka tahay qayb dhaqanku marka dhaqanku ma ceebaysna laakiinse qofkii ceebeeya ama wax ceeba ku hadla baa ceeb وهاجاك قدومي ولي واحد شرتا إن لمدة دورشون كي سوماليلاند مدحونه ولاقته كسر ساري لبادي دورشة أو هذا يوم مدحتوية لك القاضي حسب جاga وطني ولي قان رسمي كم صار سارين حلو هاي موقف جاga كوعدين دورشون كسوماليلاند نقصوا عدين واني هروج هذا حسب موقف كيسي ده وحن كجيني ما ده حد حسب جي شو كتير جيسة
waanay soo saarayaan waxaanay marayeen gobolada la tashiyay sameynayay weli way wadaan haddana waxa soo galay yani guddiyada tan dhexdhexaadinta oo wiigan marka aynu joogno la fadhiisanaysa xisbigii kale ee ucudba kadibna way sugayaan ka hor dhici maayaan aniguna hore saan u sheegay go-aankii maadaama aan ka imi oo ka soo maqanahay raggii matalayay raggaygii joogay xisbiga ee madaxda ahaa ayaan u daayo anigu halkan kaga dhawaaqmayo go-aanka laakiin doorashada ururada iyo ta madaxtooyada midkeebaad idinku door bidaysaan inay soo dhawaaqaan go-aankan kule gudaha lagaga dhawaaqaya raggii aan kaga imi anigu keligii halkan anoo fasaxa kaga dhawaaqi maayo marka dee waxay noqonaysaa in xisbigaanu jeeb ku sito horey waxaad laakiin dadka aada ugu shubteen oo muddo dhowr sannaaba aad lahaydeen waa in doorashada madaxtooyada ay soo horeysaa arrintan waxba iska bedelin maya waxba iskama bedelin laakiinse waa doonisteedii wixii dani keentay ee ay isla gartaan madaxdii aan kaga imi iyagay jirtaayo anugu halkan ka odhan maayo wagaag haddiiba doorashada ururada ay dhacdo inaad aqbashaan oo aad idinkoo xisbigii wadaniya doorashadii ururada aad gashaan oo ay soo baxaan xisbiyada ucid xisbiyada ay soo baxaan kulmiye iyo wadani iyo ururka kaaho isagu dabcan imanka aan la dhayalsan karin maaragtay awooddiisa siyaasadeed ma laga yaabaa in saameyntii siyaasadeed ee deegaanka xisbi ay hoos u dhacdo sababtoo ah laba xisbi ay meeshaasi deegaankiisa kasoo baxaan adiguna aad guddoomiyihii mucaaradka tahay waxaad leeyahay xisbiga ugu ballaaran baana mucaaradka iyo xukuumaddaba iyadoo kuwanaad sheegaysa jirana dee waanu tartano doorashadii u dambeysay ee baarlamaanka iyo deegaanka number 1 baanu ku nimi waxaana rajaynayaa imankana inaynu haddii la tartamo number 1 wax kastoo loo tartamo number 1 ku geli doono waana sababta uu muuse doorashada uga wareegayo doorashada u qaban waayo in loogu taagi waayo war doorashadii kale oo sanduuqii tuurta ugu sito waa sababta marka wax warwara doorashada kama qabno waanu isu diyaarin nin kasta oo tartanka nala gelaya oo darafku doona ah diyaar baanuna arrintaad sheegaysa ururadana arrin aan go-aan ka qaadanay oo inta la isku ogyahay oo tartankooda la isla qaatay maaha waxaan se ku xaqiijinayaa tartan kasta oo yimaada inuu xisbigaygu number 1 ku guuleysan doono insha Allah taala wagaag doorashadii ugu dambeysay baarlamaanka iyo deegaanada isku sidkan deegaanada adigu kasoo jeedo xisbiga wadani iyo xisbiyada kale kaga awood batay sida aan wada ognahay oo ma jiraan mudanayaal deegaankaaga xisbiga wadani oo la taaban karo uga soo baxay marka la barbar dhigo xisbiyadii kale ee idila tartamayay iyadoo haddana ay mar kale soo biireen guddoomiye xisbi oo deegaankaaga kasoo jeeda urur isagoo awooddiisa gaarkaa wata oo kaah la yidhaahdo taasi sooma sii wiiqaysa oon taageeradii deegaanka xirsi uu xisbiga wadani u keeni lahaa ma waanad eegini xisbigaygu wuxuu ku guuleystay hargeysa mooyaane wuxuu ku guuleystay inta kale uu kaga guuleystay baarlamaan iyo deegaanba xisbiga aan joogaana ee wadani maalintaan imi ka hor xisbi kale oo ka qaaday kulmiye ma jirin burco iyo deegaankayga iyo caarigaaba iyo deegaanka baryaan ka soo jeedo for the first time ayaa doorashadii 17 weligii intuu kulmiye jiray lagaga qaaday number 1 laga qaaday haddaanan anigu wax ku kordhina number 1 lagama qaadeen marka intaa kulmiye isagaa hogaamin jiray iminkana gobolada bariga intaa anaga hogaaminayna iminkana xildhibaano way ka soo baxeen haddaan kulmiye maalan ku barbar dhigo xisbiga nala loolamaye kulmiye wuxuu xabad buu ka helay deegaankan uu ka soo jeedo musharax hal xab buu ka helay berigii hore halka aad leedahay xildhibaano yar baad ka keentee aniguna iminka xildhibaano badan baa ka soo baxay deegaanka laakiin xildhibaanada ayaa ka soo baxay waa naga mitalaano oo kuwada golaha noo joogo laakiin mar walba waxaa dhacda in xildhibaanadaasi intooda badan qaar badan ay xisbiyada kale ee danahooda ka shaqeeyaan sida maya waxaa laga yaabaa dee aragtiya xildhibaanadu dastuurkaas badeeyo aragtiya xildhibaanku aragtiduu doonuu qaadan karaa laakiinse xisbiga iyaga xildhibaan ka soo baxay oo ku dhawaaqan ka baxay ma jiro marka adigu waxaad ku kalsoon tahay inaad taageero mugle ka keenayso boqolkiiba deegaankaaga markaa la arki boqolkiiba kalsoon waa si wanaagsan ninka aan ku tartamayna maalinteeda iyo hay casaay hadeeda waa isugu iman doona laakiin guddoomiye sow maaha inaad xaqiiqada si aad iskaga inatiraysid adigoo og in xisbigii kulmiya uu guddoomiye deegaankaaga keenay ururka kaah oo isaga dabcan aan siyaasadiisa iyo maaragtay saameyntiisa meesha ay ku jirto haddii saddexdiinuba aad hal deegaan wax u wada dooranaysaan taasi ma wadani bay wax taraysaa mise wadanigu saameyn bay ku keenaysaa dee mushkilad annaga noo gaara maahe deegaanada kaleba deegaanka madaxweynaha afar baad ka tartamaya reerkiisa ka soo jeeda haddaad xaggaa eegto wanigii hore kuu sheegay dee annagu urura iminka weli maanan qaadan go-aanka aad iminka igu riixayso dee maanan qaadan
oo inaanu saddexda ku tartami doono hadday se timaado afar baa ka tartamaya deegaanada kale ee musharaxa oo saaxiibkaya 5 bay ku tartamayaan ama in ka badan ayaa suuq saaxada ku jira marka taa wax igu culus maaha in laba nin oo kale ay saaxada ku jiraan deegaan ballaaran baan deganahay way ku tartami karaan qosumka ugu weyn oo xanaamsan in qaadan doono iyagana kama xumeynay saaxada soo gala wahagaag saan la wada socono shalay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaa kusoo gabagaboobay shirweynihii xisbiga kulmiye shirki golaha dhexe xisbiga kulmiye argaahdee sidee baad u arkaysay shirkaasi iyo go-aanadii kasoo baxay doorta ugu horreyn mala waxay igu waajibay inaan dee hambaliyay oo xisbi qaran oo qabsaday shiro taayada kuma mas-uuliyo laakiinse waxay iga muuqatay su-aasha aad weydiinayso haddaan eego xisbiga dee waxay iga muuqatay kulmiye haddii beri la kuulkuulin jiray maanta inuu ka muuqday muuqaal aada u hooseeya oo u muuqda waxa weeye markabkii titaniga degay inuu maanta halkiisi marayo sii degayo waxaana runtii ila yaabbatay ragga maanta halkaa isagoo maraya oo saaxada aada iyo aada saameyntiisii hoos ugu dhacday ragga yacni iminka uu sacabatuunayay oo golaha aad arkaysay inan baa microfonka ka hadloo ka cawdayo waxaa lagaga qaaday golaha lagaga qaaday raggii kaadirka ahaa ee aan kaga imi rag ka mid a ayaa markay jir ka soo baxeen ku qabtay shir oo kaga hadlay yacni inay ka baxeen qaar badan oo kale oo ka buuqaya waa social media ku jira marka waxaa muuqatay hoosu dhaca iyo halkuu marayo waxaa igala yaab badnaydna inuu muuse iyo maanta musharax yeelo oo yidhi haddana way kan iyo in maxamed kaahin loogu cimaamaday waxaanan u arkayaa rag riwaayad ama film dhammaaday oo laga soo dareeray oo la daawaday tigidh u goosanayaan u arkaya maxaad uga jeedaa hadalka waxaan uga jeeda dee kulmihii halku maraya iyo xaaladiisaan ku cabiraya oo halkaasu maraya laakiin ma laga yaabaa in shaxda adiga lagaa hor keenay oo nin deegaankaaga iyo xisbigii lagu wareejiyay taasna dhaawac adiga kugu keeni doonto waxba aniga dhaawac mayse anigu dee waanu isu naalaayo ma faanayo ma doonayo halka ka faano waanu ku tartami doonaayo waa naloo joogaa insha allahu tacaala waana isu kalsoona madaxweyne muuse biixin mar kale idinka hor keenay iyada hudheeda oo musharax yahay idinla tartami doona haddiiba ay sidaa u dhacdo doorashada madaxtooyada aad isla soo gaadhaan sidee baad u aragtaa dee waan u arkaa madaxweyne ku guuldaraystay himiladii bulshada ku lahayd oo lagu hungoobay inuu nala tartamo inay inaga guul noo tahay ayaan u arkaayo waa in lasoo tishaabiyo oo filankaa la daawadayo wax laale wax aan uga baqayaa ma jirtay waxaanu leenahay haddaad isa soo sharaxday waxay oo muujinaysaa raje ah inuu doorashadii madaxtooyada inta badan kala hadlayna usoo diyaar garoobeen waxaanu leeyahay welcome to the club soo dhowow laakiin muuse biixi 2017 idinka guulaystay ma shax cusub baad kasoo gelaysaan siyaasadda maxaa isbedelay mar haddiiba muuse idinka guulaystay muuse nagama guulaysan silaa inaga guulaystay maxaad ku caddaynaysaa isagaa madaxweynaha helay wuxuu ahaa darawal loo galay tartanka muuse marka hadduu darawal caadi ah iminku dalka wadi kari lahaay madaxweynihii markaa joogay ayaa naga guulaystayo madaxweyne aan u qirayo inuu popular ahaayo madaxweyne ahaa besilo madaxweyne leader ka ahaan jiray dalka ka ahaayo soo taliyayo aqoon-yahano yani aan anigu la tartami karayn ninkan wadayna aanu miisaanka ku gaadhin ayuu ahaa laakiinse muuse nagama badin maantana waa la arki doona laakiin anagu waxaan ognahay inay tartamayeen musharax ciro oo xisbigaaga wadani ah iyo muuse biixi cabdi codad aada u tira badanna runtii ku kala dee musharaxii baa weli joogay muxuu doorashadii madaxtooyadu qaban waayo u wargaalisanay sanduuqi tuurta ugu sitaa hadduu kalsooni qabo muu sanduuqii soo dhigo nala tartamo taasaa ku muujinaysa ku caddaynaysa muuse hadduu tartan diyaar u yahay oo uu yahay kii shalayto dee muu soo dhiga maxaa waqtigii baa la gaadhay wuuna wareegaalaysto saasuu wareegaalaysanaya taasaa ku caddaynaysa marka muuse maaha nin ku dhacaa maanta lehoo saaxadii uu diyaarahe hadduu diyaar u yahay wax leedhi welcome wahagaag shirka xisbiga kulmiye kasoo qabsoomay ama ka qabsoomay magaalada burco arrimo kala duwan baa kasoo baxay maayirka magaalada hargeysa cabdikariim axmed mooge oo xisbigiina ka tirsan ayaa shirkii golaha dhexe magaciisa laga akhriyay oo la yidhi xubnahaasu ka tirsan yahay walow isagu markii dambe uu beeniyey idinka ka xisbi ahaan arrintaasi sidee idinla muuqanaysa de miyaxaan ka jawaabo isagaba ka jawaabo de waa beeno waxyaalaha anshaxa ku xun ee kulmiyaan kuleeya de uu ku saqiirayo in nin meero oo magaalo joogo oo aan iman oo iclaamin oo sheegin oo weli laga haynin waan gaa yani xisbi ku jira oo meel jooga in la yidhaahdo waxa weeye xisbigaa laga yeedhinaya anshax darrada anshax xumada ka meesha ka muuqatay ka mid ah
waana runtii dhaqan xumo siyaasado kulmiye soo kordhiyay waxyaalahan kuleeyahay dee waa wax sii degaya marka dee wuu ka jawaabo aniga jawaab igama bahnee ninkale cabdikariim dee xisbiga sidaa uu sheegay dee weli xisbi uu yahay ixtiraam baana naga dhexeeya shaqaanu ku maqan yahay oo shaqadii loo dirtay buu ku maqan yahay annaguna kalsooni baan ku qabnaayo maanan mar raba ka muujin wax dareera laakiin markay noqoto cabdikariim sida uu hadda u shaqaynayo ka xisbi ahaan idinka maxaad saad u aragtaa dee annagu waxaan u dooranay oo loo geeyey halkan oo dadka yani codka ku siiyeen inuu meyer noqdo magaalada ka shaqeeya uu ka shaqaynaya marka dee annagu wixii aanu yani u shaqnay ayuu ku fogan yahayo dee wax kaloo aan imanka anugu ka doono dee ma jirto waxaan guddoomiye la soconaa siyaasadda somalilan markay noqoto ururo hadda soo baxay ururadaasi dabcan maaha xaqiiqo la iska indhatiri karo idinka ka xisbi ahaan ma isku daydeen inaad ururadaasi xulafaysi siyaasadeed la yeelataan oo gorgortan siyaasadeed aada la gashaan mar haddiiba ama ha la soo horeyso doorashada ururada ama ha dambayse ay tahay waxaad ku xukuman tihiin inaad marun gelaysaan gorgortankaa ma bilowdeen dee horta qaalido ma waanad eegin yani xoglaaba ka haysa ma hanaanka xeerku u tilmaamaya ururada laisma xulufaysta hadda ururada hadda waa la tartamaa haddii tartan yimaado lase tartankaasaama la isku afkandi marka ay dhacaan wixii dhacaya ayaa la xulufaystaa ama hadda wixii tartanka ka baqaya hada geli kara weyn ayaa la isxulufaystaa welina kuwaa maynaan arag qaarkood baan wadahadal la furay wadahadalkaan la furayna weli wuu socdaa qaar ka mida kuwii marka hore ka hadhay qaar kuwa joogaabana wadahadal baan la furo wixii noo yimaada dee waa markaan muwaafaqo gaadhno waadiga waa guddi baa noo saaro wadahadal baan la furo buuqan siyaasadeed baa kasoo dhexmara waa hagaag guddoomiye maalmahan baa magaalada london baad joogtay warar kala duwan baa laga qoray warbaahinta bulshada iyo dadyo kala duwan oo saxaafadda ka hadlay guddoomiye xirsi uu ku xayiray inay yidhaahdeen waddanka ingiriiska sababuhu bartan uga tegi waayay bay ka mid tahay arrimahaasi maxaad kaga jawaabaysaa dee runtii wax iska aada u liito oo waxay gaalada yihahdaa below the bed yani waa hadal aada u liito oo aan milgaha siyaasadda ku jirin anigu halkaan joogaa miyaan imika xidhanhayo waxaan maqlaya taag baa lugta kaga xidhan oo uu xidhan yahay susaad baa lagu jebiyo waa kaasoo jeel buu ku jiro waxaa miyaad adigu aragtay soodiga adigu wareysanaya marka dee wax aan ka jawaabo macnale maaha waxaan u arkaa un anshaxumada aan kuleeyahay runtii waxay ka muuqataa ragga kulmiye imika yani sheeganaya bay ka muuqataa oo aan hore u jiri jirin ayay runtii ka mid tahay siyaasadduna qiyam bay leedahay oo beenta lagama dhigto slogan beenta lagama dhigto inuu qofku target ka dhigto oo uu iyada ku loolamo marka waxay iga muuqata runtii dhaqan aada u liito oo kulmiye iga muuqdo oo ah inay beenna wax ku doonaan oo adigaa dee sheegaye nin meeyarho xafiiskiisii jooga laleeyahay xisbigayba kamid laga yeedhinayo shir laga yeedhinayo ee isna uu beeninayo waa adigan sheegayo anigoo halkan kula fadhiya wuu xidhan yahay ay leeyihiin marka waxaan runtii u arkaa inay tahay nasiib darro weyn waana yani dhaqankaan kuleeya wuu soo kordhay aad kau liiteen been quutayaasha dadka mushaharka ku qaata beenta oo anshax xumo ah runtii waxaada xuna nabiguna salawatu wasalaamu caleyh wuxuu ku tilmaamay beentu afcaasha kaloo dhan baa la weydiiyey nabiga salawatu wasalaamu caleyh muuminku waxaasoo dhan ha ma samayn karaa beenta markii nabigu yani wuu jiifayo ama wuu jiqalaysnaayo wuu soo kacayo almumin laa yakdibu muuminku beenta ma sheego marka runtii waa dad ka dhigtay risiqi inay ku helaan been waxaana de aynu ognahay uu ahaada afarkiina ahaa dadku risiqa waxay ku doonaan qof waliba siduu ku doono ayaa lagu siinaya qofkii si xun ku doonaan si xun buu ku helaya oo dulya qofkii si wanaagsan ku doonaan si wanaagsan buu ku helaya qaar bay halkaa ka gashayo qaar halkan jooga ama westernka aad aragtay joogo shaqaysto oo aan dunida yani qofku bariis wixii kaleba ka warwariya bariis laga warwariyo qofku u shaqaysan karo ama dawladduba siiso ayaa somaliland intay been maluuqaan lacag kaga doonta ama loogu soo diraayo waa dhaqan xumadan kuu sheegayay kulmiya ku biiliya si uu qurbaa joogo marka waa unfortunate anagu caddaynta kulli ma hayno adigay kugu koobantay guddoomiye gabagabadii guddoomiye maxay tahay fariinta aad u dirayso shacabka somaliland iyo taageerayaashaada xisbiga waddani oo runtii go-aan idinka sugaya adigana si weyn hadalkaaga ugu dhegtaagayay in muddo aha shacabka reer somaliland waxaan runtii ugu baaqayaa nabad waxaan ugu baaqayaa isku duubni waxaan ugu baaqayaa
inay horumarka iyo iskaashiga ka shaqeeyaan. waxaan ugu baaqayaa inay dhaqanka iyo diinta ilaaliyaan. waxaan ugu baaqayaa garabyada siyaasadda ama waxa weeye matalayaasha siyaasadda ee jooga Somaliland inay u hoggaansamaan oo u dhaganuglaadaan guddiyada isu xilqaamay inay waxa weeye ay dhexdhexaadiyaan muranada siyaasadda ee jira. annaguna sidaanu sheegnay xisbigayga hore uga warramay kalsooni baanu siinay kuna qabnaa. waanan ka xunahay in madaxweynuhu ka dhawaajiyo guddiyadaas oo uu dhaawaco. waxaan leeyahay ragga ama lama diro ama lama diro. haddii maalin walba inta guurti la diro oo madaxweynuhu hadhowto kadaba ka wareego, runtii waa haddii geela duqdiisu durdurisay aragkiisu muxuu yeelayaa. waana waxa ugu wacan halka uu maanta marayo. waxaan leeyahay xaydaabka iyaan laga bixin siyaasad